السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دaawayaal waa Boolimood Media uga barateen halkan inay ka soo gudbiyo wararka iyo warbixinada ka dhaca dunida ciid mubaarag ayaanu idin leenahay waa 23 bisha shanaad 2020 maalinimo sabti ah waxaan warkeena ku bilaabeynaa khilaafka u dhaxeeya labada mas'uul ee ugu sarreeya Puntland ayaa isa soo taraya suxuufigii Cabdimaalig Muuse Eldoon oo ku xiran magaalada Hargeysa oo dib loo sii daayay bishii Ramadaan oo dhalatay oo laga arkay meelo badan oo dunida iyo Sheekh Umal oo arrintaasi ka hadlay oo ummadda muslimiinta la hadlay fadlan hadee daawade markii ugu horreysay soo baaqato channelka subscribe saar gambalelkana furo adigoo maasan si aad noola socotid fiidiyoyadeena haddaba waxaan ku bilaabeynaa sidaan warkan idiin sheegnay labada mas'uul ee ugu sarreeya maamul goboleedka Puntland ayaa waxaa la sheegayaa inuu khilaafkoodii isa soo taraya iyagoo maalinta ka dambaysa uu sii kala fogaanayo labadan mas'uul ayaa waxa uu khilaafkoodii bilaabmay tan iyo markii uu madaxweynuhu magacaabay xilal uu magacaabay taliyayaal madaxtooyada ayaa waxaa la sheegayaa in madaxweyne ku-xigeenku isku qabsadeen waxaan kaloo idiin sheegaynaa daawadayaal ee suxuufigii ku xiran magaalada Hargeysa waa Cabdimaalig Muuse Eldoon ayaa waxa ay maantay oo ay tahay 22 bishii shanaad 2020 xorriyadiisa siisay waxaa la sheegayaa in Cabdimaalig Muuse Eldoon lagu daayay cafis madaxweyne oo lagu sameeyay inay tahay maalin farxadeed oo ciid ah ayaa waxaa la sheegay dadka uu madaxweynuhu cafinayay inuu ninkaasi ku daray waxaanu idin keenaa inay dhalatay bishii ciid oo laga arkay meelo badan oo Soomaaliya iyo dibadaha oo kala duwan ayaa waxa ay ummadda muslimiinta ay meelo badan dadku kala hadleen la sheegayaa in ay lagu soo arkay bishii wadamo badan oo kala duwan oo dunida muslimka taas ayaa waxa iyadoo ay jirto waxa ka hadlay muftiga weyn ee Soomaaliyeed ee Sheekh Umal oo jooga dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi ayaa waxa uu yiri waxaana soo gaartay in meelo kamid ah gudaha dalka Kenya iyo meelo ka baxsan oo dibadaha iyo gaar ahaan uu yiri meelo ay kamid tahay Soomaaliya sida Jubbaland iyo gobolada koonfur galbeed ayaa waxa uu yiri waa laga arkay sida awadeed biri oo sabti ah yiri waa in ay dadku ciidaan oo ay iyadoo uu yiri dadku waxa ay ciidayaan waxaana ay ku tukanayaan ayuu yiri guriyooda waxaa la kaloo idin daawadayaal madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu la sheegay inuu ku adkeysanay go'aankiisa ahaa in dawada loo yaqaan chloroquine dawada malaria loo qaato loo isticmaalo cudurka COVID-19 tan oo carqalad gelisay ayaa la yaabay socodkii dawada ay ama tijaabadii la waday dawada fasiinta waxaanu kaloo ku guda jirnaa wararkeennii isla gudaha dalka Mareykanka waxaa cabsi weyn laga muujinayaa kadib marka gobollo badan oo Mareykanka la furay ayaa madaxweyne ku-xigeenka dalkaas Mike Pence waxa uu booqasho ku tagay Florida iyadoo laga cabsi qabo ayaa la yiri in meelahan furistu ay dhalisay inuu cudurku kor u sii kaco madaxweyne Donald Trump ayaa isaguna waxa uu ku weeraray gobolka Michigan bartiisa Twitterka isagoo yiri Michigan waxa ay diiwaan gelisay dad maqan oo isagoo ka hadlayay arrintaasi doorashooyinka socdo ee qabsoomaya ayaa waxa uu sheegay in si sharci darro lagu diiwaan geliyay dad ka badan 7 milyan iyadoo aan la socodsiin buu yiri maamulka amaba mas'uuliyiinta ugu sarreysa gobolkaas Michigan waxa uu ugu goodiyada gobolkaas inuu ka jari doono fanka ama gargaarka loo wado ee bini'aadanimo ee ama dawooyinka loo geyn lahaa ee ku saabsan COVID-19 waa Boolimood Media tan iyo kulanti dambe oo wanaagsan ciid wanaagsan ayaanu idin leenahay meel kastoo aad dunida ka